بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبيال ميل والبو آد عالمka ka joogtiin soo dhawaada ayaynu idin leenahay sidii caadiga waxaan noo soo socday taxana aan ku baranaynay suuqa sarifka lacagaha qalaad ee forex taasoo aan idin af Soomaaliyeennay bulshooyinka Soomaaliyeed ee fahmi karta luqadan aan ku hadlayo ee af Soomaaliga ah haddii aad ka mid ahayn saaxiibada ku xiran page-keena Telegram-ka ee Halbeeg SOS Empire إن شاء الله waxaan idin kula wadaagi doonaa qaybta hoose ee shaashada description-ka adigoo halkaasi nooga soo biiraya haddii aad xiiseynaysid in aad baratid suuqa sarifka lacagaha qalaad hagaag waxaa noo soo socday taxana aan ku baranaynay chart buttonska oo ah aalad muhiim ah markii la joogo suuqan sarifka hore waxaan ugu soo sheekeynay qaybo ka mid ah chart buttonska oo uu ka mid yahay head and shoulder double top double button iyo kuwo kaleeto caawana insha Allah hadduu Allah awood leh yiraahdo waxaan idin la wadaagaynaa qayb cusub oo ayadana aad ku baran doontaan waxa ay qabato suuqan marka la joogo iyo sida ay u shaqeyso okay qaybteena cusub ee caawa aan rabna hadduu Ilaahay yiraahdo in aan idin la wadaagno waxa ay noqonaysaa noocyada loo yaqaano rectangle oo ah chart buttonska nooc ka mid ah chart buttonska magac ahaanna loo yaqaano rectangle insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo noocan ayaan caawa dul istaagi doonaa sida uu ku sameysmo iyo sababaha uu ku yimaado iyo haddii suuqa uu ku yimaado sida looga faa'iideysto ayaan idin la wadaagi doonaa hadduu Allah awood leh yiraahdo soo dhawaada mar kale waxaan idin leenahay Ramadaan wanaagsan waxaan ku jirnaa 10kii dambe ee Ramadaan insha Allah caafimaad qab Ilaahay noogu dhameeyo iyo cibaado suuban inta muslimiinta sooman ee nagu xiranna waxaan leenahay hambalyo waxaan ku jirnaa sanada 2020 okay maanta waxaa miiska noo saaran nooc ka mid ah noocyada chart buttonska ee loo yaqaano rectangle okay rectangle waxaa lagu muujiyaa waqti isugeyn ama ismaandhaaf ka dhaxeeya iibsadayaasha iyo iibiyayaasha markii ay la wareegayaan awoodda tuurista laakiin midkoodna uusan la wareegin Soomaaligaas waa fudud yahay u malaynaa qiimaha wuxuu tijaabin doonaa heerarka taageerada oo ah support iyo iska caabinta oo ayadana sidoo kale loo yaqaano resistance dhowr jeer ka hor inta uusan ugu dambeyntii burburinin ama u jabsanin okay intaas aan Soomaaliga aan ugu soo sheekay haddii aan dul istaago tusaalaha koowaad qaabka uu u sameysmo rectangle-ka waa sawirkan hortiina ka muuqda mar walba oo aan cashir diyaarinayno ama aan ka sheekeynayno suuqana waxyaabaha aan idin la wadaagno waxa ka mid ah sawiradii iyo shaxdii suuqii oo aad si toos ah u arki kartaan sida ay u sameysanto iyo marka ay jabsanayso qaabka ay u jabsato iyo haddii even fursad meeshan ay ka soo baxdo sida aad uga faa'iideysan lahayd iyo inta bib ee aad u raaci lahayd suuqaasi kor iyo hoos midkoodba okay sawirkan inta ka muuqda koowaad haddii aan dul istaago marka horta marka ugu horeyso qaabka rectangle-ka loo yaqaano waxa uu u sameysmaa afar xagalkan ee ka muuqda hortaada ama square-ka waa laba xariijin oo dhinacyada ah iyo laba xariijin oo kor iyo hoos ah qaabka noocan ah ayaa waxa dhacda marka suuqa ka yimaado qaybta hoose ee uptrend ku socda markii uu xaalad noocan ah uu galo ee hortaada ka muuqato waxaa loo yaqaanaa rectangle haddii xaalad isla siman ee kor iyo hoos kor iyo hoos kor iyo hoos ah uu galo waxaa loo yaqaanaa rectangle xaalad ah okay suuqa markiisii hore wuxuu ka yimid hoos kadib waxaa la geliyey consolidation wax loo yaqaano consolidationkii markii uu dhacay kadib waxaa yimid in la suubiyo continuation oo ah meeshii suuqa uu ka yimid in loo sii kaxeeyo oo ah suuq kor u socda okay haddii marka suuq xaaladan ay ka dhacdo aa aragtid in uu ka baxay xaaladii consolidationka ama uu ku jabsaday rectangle-kaagi maxaa loo baahan yahay in aad samaysid taas waanu isla gaari doonaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo laakiin marka hore waxa muhiim ah inuu qofku fahmo rectangle haddii aad maqashid shaxanka loo yaqaano ama pattern-ka marka la joogo suuqan forex-ka qaabka uu u sameysmo waa noocan ama qaabka hortaada ka muuqata ee ah afar xagalkan isla siman laba kore iyo laba dhinacyada ah oo mid walba uu isla siman yahay good okay sidoo kaleeto waxaa jira marka nooca labaad oo asagana ah rectangle suuq
kor ka yimid oo hoos u soo socda oo loo yaqaano downtrend xaalad noocana markii uu galo asagana waxa aan ka filan karno waa isla sida kii hore ee ahaa in uu suubiyey continuation wax loo yaqaano oo ah jihadii suuqa markii hore uu ka yimidba loo sii wado kadib markii uu galay xaalad yar oo consolidation ah isla suuqan sidoo kaleeto waa suuq kor ka yimid ee noo soo daatay galay xaalad consolidation ah oo aan la kala badinin kor hoos kadibna waxa aan filan karno waa in uu soo jabsado eriyadeenii saboortiga ah kadibna aan u raacno fursad hoose ah good qaabkan marka rectangle-ka xaqiiqdii ma dhib badno waa nooca uga fudud marka la joogo chart patterns-ka qaab ahaanna haddii aad fiirisid waxa uu la shaqeeyaa saboortiga iyo resistansiga sababta aan uga soo daray sawirkan ayaa ah in aad fahantid sida caadiga ah suuqeenna caadiga waxaanu ku qiyaasanaa ama aan ku taxliilinaa saboorti oo ah qaybta hoose iyo resistance oo ah tan kore labadii xariijin marka markuu ku dhaco resistansiga kadib suuqa waa la soo celiyey eriyada saboortiga ayuu noo yimid waa laga celiyey oo haddana kor ayuu ku dhacay oo noo ahayd resistance xaalad noocan oo isla siman markii uu galo oo sawirkan hadda hortaada ka muuqdo qaybta gacanta bidix ka muuqda aad ka fahmi kartid ayaa waxaa dhacday in uu jabsaday laakiin qaybtan marka ma caddeynin suuqan ma kor ayuu ka yimid mise hoos ayuu ka yimid labadaba way qarsoon tahay okay aan isla fahanna marka good rectangle marka asoo bearish ah ayaan ku bilaabaynaa nooca bearishka marka waxaa la sameeyaa markii qiimaha isku darka muddo la joogo inta lagu guda jiro hoos u dhaca qiimaha taas oo ah downtrend okay tan waxa ay dhacdaa sababtoo ah iibiyayaasha ayaa laga yaabaa inay u hakiyaan si ay u qaataan nasiino ama break ka hor intaanay u kala qaadin labada lacag hoos ama kor ama downtrend aan dhaho okay mar walbo aan kasoo sheekeynay sida caadiga noo ahayd waxaa la socday sawir noo caddeynaya wixii aan kasoo sheekeynay suuqan haddii aad fiirisid marka waa suuq ka yimid kor ee usoo daatay qaybta hoose kadibna noo soo dhexgalay eriyadeenii rectangle-ka aan u naqaano suuqa markii qaabkan uu u samaysmo consolidation oo ah xaalad aan lagu kala adkeen awoodahana marba koox ay la wareegaysay good iyadoo sidii ayaa waxaa dhacday in suuqii uu jabsado marka waa nooca bearishka hadda ayaan taagannahay marka uu jabsado marka bearishka si fiican u fiiri sawirka labaad ee qaybta hoose ka muuqda markii uu jabsaday kadib waxa uuna siiyey bullback oo ah dib u laabashadii kadibna waxa uuna siiyey suuqan fursad aan u raaci karno hoos okay sida caadiga marka shaxan walba markaan kasoo sheekeynaynay waxaan raacin jirnay oo caadiya noo ahayd inuu qofku fahmana la rabo mar walba ee aan rabno suuq noo soo jabsaday in aan ka faa'iidaysano jihadii markaas uu aaday si la mid ah marka waa inaan ogaanaa intee bib ayaan ugu yaraan ka rabnaa suuqan in aan faa'iida ahaan uga qaadano ilaan suuqan ma aha suuq hal jiha oo keliya ku soconayo ama lagu leeyahay hadduu mar hoos aado ilaa intaas hoos oo isaga soconaa waxaa dhici karta suuqi inuu daato qiyaas loogu talagalay lisla og yahay dadka suuqan ka shaqaysta dadka yaqaana suuqan ee taxliiliyana ay og yihiin ay ku tashan karaan bibis go'an kadibna haddii uu sii daatana ah fursad aad iyo aad loogu farxi karo haddii uu kugu soo noqdana aad bannaanka ka joogtid oo aabajaa already faa'iidadaada ka haysatid ama sida caadigaa dad waxaa jira daba dhigta stop losska ee mar walba kasoo daba qaada haddii xaalad noocaas adoo ku jiro oo suuqii kugu soo noqdana laba gooro waxaad ka haysataa waa faa'iido okay mar walba marka sida caadiga noo ahayd waxaan kasoo sheekeennay in aan cabirano eriyada noo ahayd rectangle-ka ee consolidationka suuqa uu ka suubiyey hoos ilaa kor ama kor ilaa hoos adoo soo cabiranayo kadibna markii uu kuu jabsaday ee bullbackta uu ku siiyo hoos ayaad waxaad u raacaysaa dhaqaaqii u dhexaysay labadeenna xariijin ee ahayd midna resistansiga tan hoosena noo ahayd saboortiga xariijina intaas af soomaali fudud ama af soomaali kasii fudud intaas oo aan kugu fahansiin karo inaysan jirin haddii aad intaas ku fahmi weyse okay noocan waa nooca marka bearishka good nooca labaadaa jira marka ee asna bullish loo yaqaano kelimadahan bearish iyo bullish ha ku kala wareerin bearish noocii hadda aan kasoo sheekeynaynay waa suuq sel ama iska iibin ah haddii aad aragtidna bullish waa suuq la iibsanayo ama fursad buy ah
okay taas darteeda mar walba waxaan raacinaa af Soomaali oo aan ku soo qornaa si qofka uu u fahmo ama waxaan soo raacinaa sawiro qofka fahansiin kara ama wax badan oo macno ah uu kala bixi karo haddii uusan aqoonin luqadda Englishka taas oo lagu kaliftay in aan afkeenna hooyo ee Soomaaliga aan ka dhigno si qof walba oo Soomaali ah ee daawanaya muuqaalkaana uu u fahmi karo okay nooca labaad ee loo yaqaano bullish rectangle marka waa fursad is iibsasho ama buy ah okay halkan waxaa ku yaala marka tusaale kale oo lady ah macnaha rectangle ayaan ka wadaa kelimadaas markaan jaantuska marka shaxanka afar geesoodka ah oo xoog leh kadib guuritaankii qiimaha wuxuu joogsaday inuu isku xoojiyo wax xooga ah ma qiyaasi kartaa marka halka sicirku uu ku socdo marka xigta sababtoo ah maadaama kii hore aan kasoo sheekeennay kan hadda kama duwana kii hore marka loo fiiriyo labada jiha ay kala aadayaan laakiin waa isku si cagsiga jihooyinka ay ka kala yimaadeen iyo jihada ay u bedeshteen ayaa kala duwan okay si aan iskula fahanno marka nooca koowaad aan ka bilaawno intaan nooca koowaad ka bilaabin sida caadiga ah nooca waxaan horumarsiinaa xaaladan consolidationka ku jira si aan u ogaano marka kadib consolidationka wixii dhacay suuqan waa suuq ka yimid hoos ee u soo socday kor caadiyan waxaa loo yaqaanaa waa suuq uptrend ah ama fursad kore okay suuq markuu kor u socdana waa suuq la iibsanayo oo buy ah suuqii buyga ahaa ee kor ku soo socday ayaa waxa uu kuu soo dhexgalay marka areadii rectangle-kii shaxanada suuqan looga trade gareeyo marka aad sidan u heshid kadib xaalad consolidation yar oo suuqa uu galay oo kor iyo hoos kor iyo hoos kor iyo hoos ah maxaa dhici doona marka waxa aan suganaynaa waxay tahay in laga dhex baxo eriyadan uu suuqa uu taagan yahay ogow marka beerishka iyo boolishka waa kala qaadna mahane suuqan labada nooc buu u samaysmaa oo kor iyo hoosna waa uu u samaysmaa kadib sawirkeena labaad aan u imaano si aan u ogaano marka xaaladii dhacday consolidationka kadib suuqii waa uu ku soo jabsaday jabsashada labaad markaas mar walba waxaan ka shidaal qaadanaa oo inta aan ka soo sheekeynayna charta patterniska kan dhalka ugu horeeya ee jabsaday xaalad walba ayaa ka suuragal ah ha isku dayin inaad kan dhalkaas raacdid sababtoo ah waa la soo celin karaa isbeddel ayaa suuqa ku imaan kara si aan u xaqiijisano marka waxaan u baahannahay in aan sugno kan dhalka labaad ee suuqa banaankiisa ama areada resistancega noo ah banaankeeda ku furmay okay kan dhalka labaad markuu kuu furmo marka caadiyan waa inaad sidii aan kasoo sheekeennay aad soo cabirataa qiyaastii hore ee inta uu ku jiro xaaladda consolidationka kor iyo hoos ilaa intee biib ayuu suuqaasi dhaqaaqay si aad fursad kor ah ugu raadisid mar walba oo aan cabiranayna marka muhiimadeennu waxa ay tahay in aan ogaano ugu yaraan suuqaasi intee kor loo qaadi karaa sida aan soo sheegnay way ka badan kartaa laakiin ugu yaraan waxaa qasab ah in intii uu soo dhaqaaqay xaaladan consolidationka intii lagu jiray in uu kor u dhaqaaqo sida hadda inta aan ka aragno waa uu kasii batayba uu kusoo laba jibaarmay qaybteennii hore laakiin markaasoo kale maxaa la suubiyaa waxaa la galaa laba trade midna waxaa loo furaa take profitka oo ah faa'iidada midka koowaadna take profitka waa loo xiraa kadib marka la xiro kan labaadee kuu furan ee take profitka ah u furatay kadib waxaad kasoo daba qaadaysaa ama kasoo daba raraysaa stop losska hadalkaas inaad fahmi kartaana rajaynaa haddii stop losskaaga aad keensatid areadan ama intoo kaleeto ee suuqa lagugu soo celiyo laba jibaar faa'iidadii aad u soo raacday suuqa waad ka haysataa okay fiiro gaar ah u yeelo marka rectangle chart patterns sida sicirka uu kor ugu kacayo ilaa korkiisa kadib markii uu ka sarreeyey heerka sare ee iska caabinta kelmadahan iska caabinta iyo taageerida waa supportigii iyo resistancegii oo aan af Soomaaliyeeyey si aad idinkana si fudud ugu fahantaan mar walba casharadeenna way kusoo noqnoqotaa waxaana rajaynayaa in aad wax badan ka fahmi doontaan hadduu ilaahay yidhaahdo haddii aan haysan lahayn marka amar dheer oo ka sarreeya heerka iska caabinta waxaan ka qaban lahayn xoogaa bibis oo ganacsigan ah good sida jaantuska laba jibaarka tusaale ahaan marka lamaanuhu jebiyaan waxay caadi ahaan samayn doonaan dhaqdhaqaaq la mid ah intii hore inta u dhexaysay cabirkii hore in la eg taasoo aan hadda kasoo sheekeennay suuqa markii uu kuu soo dhexgalo areadan consolidationka kadib soo cabiro markii uu break out sameeyo soo cabiro intii xaaladan lagu jiray dhaqaaq intee la eg ayuu suuqa sameeyey
xaqiiq casharada aan inta aan arkay cashiro ama aan raadiyey muuqaalo iga caawin karo intaan barnaamijkan baranayay aad ayay iigu dhib badneed in aan ogaado suuqa inta aan raaci karo tanna waxaan idinkula wadaagaa waxa ay tahay in aad afkiina soomaaliga aad ku barataan suuqan aadna u fahmi kartaan haddii even xaalad jabsasho ay timaado ilaa intee la eg ayaad suuqan u raaci kartaa waa ugu yaraan good intaas markii aad soo cabiratid kadib kuu soo jabsado suuqii break bullbagina uu ku siiyo waa ujeedaa oo suuqii intii in la eg ayuu soo dhaqaaqay walow ayba kasii badan karto okay muhiimadda marka waxa ay tahay noocan aan rabna caawa in aan isla fahanno hadduu ilaah yidhaahdo waa nooca rectangle oo ka mid ah chart buttonska lagu cabirto suuqan ama lagu ogaado xaalad noocee ah ayuu suuqan ku sugan yahay ugu hore waxaa u baahan taha marka inaad ogaatid rectangle-ka waxa uu u samaysmaa qaab noocana good labo suuq haddii uu kor ka yimaado ee suuq hoose uu yahay uu kuu soo gala xaalad consolidation ah kadib kuu jabsado break out uu kuu suubiyo kadibna aa heshid bullbaga waxa aad filanaysaa dhaqaaqii intii hore in la eg inuu suuqaasi soo dhaqaaqo intaasna waxaan rajeynaa in ay fududdahay hadduu allaha awoodda lahi yiraahdo insha allah hadduu ilaah yiraahdo waxaan suubinaynaa taxanayaal kaleeto fara badan oo ka mid ah barashada suuqan sarifka lacagaha qalaad haddii uu videogan ku caawiyey waxaan rajaynayaa in aad wax badan ka fahmi doontid fadlan waxaa ku jira cashiro kaleeto fara badan pagekeenna ama channelkeenna halbeegis os empire ee aan ku leenahay youtube-ka adigoo dib ugu noqon kara soona daawan kara muuqaaladii aan ka diyaarinay barashada suuqan sarifka lacagaha qalaad haddii aad ku cusub tahay channelkeenna kusoo biir gacmo furan ayaanu kugu soo dhaweynaynaa sidoo kale waxaanu sameynay channel telegram ah oo free ah dadkana aan kula wadaagna aqoonteenna iyo khibradda aan u leenahay suuqan sarifka lacagaha qalaad waxaan rajeynaa intaas dhinaa ka fahanteen idinkoo channelkeena rukumanaya ama subscribe saaranaya si aad u heshaan casharada dambe ee aan soo gelin doono hadduu allaha awoodda lihi yiraahdo inta ka horeyso waxaanu idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabad gelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu